bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh soo dhawaada dhammaantiin baa ku soo dhawaada madasheena hoyga horumarka magacaygu waa shaakir akhyaar waxaan ahay samafale jecel dhalinyarada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah waxaa mahad iskale mawlihii meeshaan nagu kulmiyey marka labaad waxaan rabaa adiga inaan ku mahad celiyo oo kanaalkeena laga yaabo inuu subscribe saaray oo mar kaleetana meeshaan nagu soo booqday mahadsanid walaal haddaad meesha ku cusub tahana ku darsa kanaalka insha Allah kama shalaayay doontiida waxa meesha ku qoray muxuu ku siyaadaa maalka maxaa siyaadiyo ama maalka maxaa badiyo ama mowduuc ka dhiganay mowduucan wuxuu ka haray mowduucyadii aan ugu talagalnay bishii barakeysneed ee Ramadaan ee soo dhaaftay maxaa maalka badiyo waxa uga dhigan wax kaleeto maahan maanta waxa idin wadaa mowduuc maalka badiyo maalka kaliya ah ma badiyo mowduucan jana waa lagu helaa balaayo waa loogu badbaadaa cudurka waa looga caafimaadaa cimrigu ku barakoobaa ducana waa lagu helaa mowduuca intaas dhan oo faa'iido ah lagu helo maxaa waa isweydiinaysaa anigana waa ku weydiinaa insha Allah jawaabta raadi hal mar muuqaalka bareeg ku qabo iskaga jawaab anigana waa kaaga jawaabo marka haddaa ku jawaabtay bareegi kadib ee jawaabtaada ee noqotay mowduuca amaanta nooga shaakiro waa sadaqo jawaabtaadu waa sax jawaabtaadu waa mid sax ah Allah ku barakeeyo garashada ku garatay marka mowduuca maanta idin wada waa sadaqada waxa soo faa'iido ah kaliya lagu ma hele faa'iidooyin kale oo badan insha Allah waa idin sheegi doonaa oo laga helo ama lagu helo sadaqada marka laba qaybood u kala qaaday qaybta koowaad waxa waa sadaqada muhiimadda ay leedahay iyo faa'iidooyinkeeda qaybta labaad waxa waa sidaan ugu taqaaniin qalabkii ama habkii sadaqada macnaha laga yaabay ee dhalinyaro waa macnaha dadka la hadlaayo badankiin bi inaad dhahdeen waxba meesha kuma hayno shaakiro wixii qarash ahay lama haye maxaa xal ah insha Allah waxa idin sheegi doonaa waxyaabo badan oo lacag aan u baahnayn oo aad sadaqaysan kartiin waliba xilligan ay ku fiican tahay dhalinyarada aad tihiin in aad sadaqaysatiin marka insha Allah qaybahaas badan aan idin wadaagi doonaa kuwa lacag ah iyo kuwa aan lacag ahayn waxaana badan idinka ballan qaadaa inta aanan lacagta ahayn oo aan lacag idinka rabin oo aad wax sadaqaysan kartiin qaybta koobaad hadaa ku hormarno muhiimadda ay faa'iidooyinka ee sadaqada leedahay inay ka koob tahay maalka inuu ku bato maalka inuu sadaqada ku bato horta horeeto waa wax muslim iyo gaalaba isku raacsan yahay oo ahadiis iyo quraan badan ee ku soo arooreen in uu maalka ku saacido sadaqada faa'iidooyin badan ee leedahay marka gaalada macnaha waxa isdhihi kartaa gaalada waxa kaliya ay u sameeyaan horta waxa waa maalka inuu saacido canshuurta in laga dhimo dadka inay maasha Allah ay ku jeclaadaan maalka inuu u koro iyo bini'aadanimo kale waa waxa u sameeyaan badanaa gaalada muslimiinta laakiin maalka kaliya ugu siyaadahay ee janan way ku helayaan waxa janan lagu helayaan wax sahlan ma ahan waxay sahlan ma aha marka sidoo maalka ugu saaciidaha leedahay hal shilin hadaa bixiyo anoo hal shilin haystay nus shilin hadaa bixiyo nus shilin kale taa isoo haraa leedahay sidoo ku saaciida maalki waaba iga naaqusay nus shilin dhanaaba jeebkayga ka baxay marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma naqasa maalan min sadaqatin marka maalka wax sadaqa hadaa ka bixisid ma naaqus habarteeday ka tahay kaama naaqusay marka nabigeena maasha Allah Muhammad Amiin al dhihi jiray nin run badan uu ahay nin aqli badan uu ahay ilaahayna uu waxyoonay wixii run ah iyo wixii been ahna uu kala yaqaanay marka maalka waxba yaraatee sadaqada kuma naaqusayo anaga laakiinse laga yaabo inaan shilinkaas baxay u jeedno laakiinse shilinki waxa kuugu bedelmaayo wax ka badan maalin kasta wuxuu yiri ma arkino xadiis kale nabiga nagu wadaaga maalin kasta waxa soo degta laba malag labada malag oo soo degay mid wuxuu u duceynaa qof kasta oo sadaqa baxsan wuxuu leeyahay Allahumma a'di munfiqan khalafa qofkan ma arkino oo halka shilin haystay oo shilinka bixiyay ilaahu rabbi oo raxmaan wax ka badan oo ka baraka badan shilinkaas milyan inuu kugu bedelmaa laga yaabaa 100 inuu kugu bedelmato 1000 inuu kugu bedelmato milyan inuu kugu bedelmato Allahu a'lam faa'iidadeeda maanta hadaa heli weyso hubaal waxa waa aakhir waa helaysa haduu ilaahay idmo marka wax ka khayr badan aa kugu bedelmaayo shilin kasto oo aad jeebkaaga ka soo baxsatay oo aa ilaahay dartiis u baxsatay marka malagaas ku duceynayo malag labaad wuxuu dhahay insha Allah waxa idin wadaaga mar dhow kan koobaad laakiin suu ku duceynaa qofkii baxsaday
ودعينا وحليها اللهم أعدي منفقا خلفا قفكاس بحصد إلهي إله ربي الرحمن وخير وبدل إله ربي الرحمن ومالكيس وبركي إله ربي الرحمن المهيس ودور إله آخرديس وهجاجي malagaas adigu ku duceena marka meesha ka soo bixisay wax khayr ka badan waxa bixis wax ka badan oo ka baraka badan oo ka khayr badan inuu ilaahay kugu bedelo uu ilaahay kaaga bara ilaahayna quraankiisa wuxuu nagu leeyahay waman yuqashuha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun kuwa ma arkino bakhiilnimada ka badbaada bakhiilnimada macnaha ma ahan mid dadka ay yaqaaneen bakhiilnimada oo sadaqada laga wada bakhiilnimada maalkaaga macnaha hadaa tahay nin oo maalka bixiyo ama deeqsi ah laakiin si waxa deeqsi ku taa waxa waa adduunyadan kaleeto waxa waa xafladaha lacagta ku kala fardhisa meelahan kaleeto wax ku shubtaa laakiin si ilaahay dartiisa waxa uma bixisid dhinacaas bakhiila ka tahay guriyaha waa dhisataa hoteeladaada boosaska kulli ku kala dhisan laakiin si ilaahay dartiisa markii wax loo bixinayo waxa waa shilinkan ka baxaya fiirsa oo bakhiilnimo ku tahay marka qofkii bakhiilnimadaas ka badbaado oo shilinka ilaahay dartiisa loo bixinayo aanan hakranin qofkaas waa qofka liibaanay qofkaas heede waaye qofka liibaanay oo guuleystay marka meeshaasna ilaahay waxa noogu cad ayadana mid kaleeto oo ah qofkii wax baxsado inuu yahay qofka guuleystay adduun iyo aakhiraba markasta oo wax sadaqaysato ilaahay maal kaleeto wuxuu noogu digaa waxa horta horeetana laga rabo inaan ogaano waxa waaye waxaan ahaysano imaalkaba inuu ilaahayna siiyay ayadaana noo cadeynayso anfiqu mimma rasaqnaakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ماشي أسعن واترى مركب فأصدق وأكون من الصالحين مركب قفك إلهي وحوليه وربحص مالك أنكسي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وربحص بالمال كان أنكسي أنت يسد مشهدكو إيمان إلهك ودار شيء بحص maalkan anaa ku siiyay macnaha adiga ma lihid annaka inaan leenahay isku mudnaa shaqaysan xoogeen idhiidkeen laakiin se maalkan ilaaha noo soo dhiibay ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay dad kale tuu noogu soo dhiibay inaan u sii gudbino markii dadka kale oo loogu soo dhiibay hada u sii gudbin weyn ka waran qaadicu dariiq dadka isbaara naqaana Soomaalida annaka isbaarada ku dheereena isbaara hada u dhigatid ka waran macaawano raashin ah oo dad masaakiin ah oo qaxooti ah oo baahan loo waday hadaa wadadii jartad ka war u dhigatid dhahdid may wax loo gudbinayo ma jirto dadka ninka isbaarada waxa laga yaabaa halkii soo bariis iyo xoogaa yar oo lacag hadii la siiyo isbaarada inuu ka qaado ee dadka cuntada u gudubto masaakiinta ah laakiin mid ka daran haduu imaado ka waran oo mucaawanad iyo wixii dhanba dhahaba lacag kasta sheegtiin ma rabo aniga mucaawanada ayada dhanaaba leexsanaaba ayada dhan intuu leexsado waa asaga calooshiisa ka buuxsana inta kale tan guriga ka dhisana qofka marka oo saas sameeyay maalka iyo irsaaqada ilaahay cirku ka soo dhiibay qof uu adigu kugu soo dhiibaa laga yaabaa adigu qofkiya ku soo gaarsii adigana qof kale taa lagu sii dhiib oo ina sii gaarsiis loogu talagalay laakiin maada sii gudbin adiga wixii lagu soo dhiibay maadan sii gudbin oo maada sii gaarsiinin qofki kaleeto oo loogu talagalay markay dadkaas hadhowtay meesha aakhirada ee dhintaan waxay ka shalaynayaan lowla ilayhin lowla ma arkana iyo leeytan isku mid leeyahay shalaytada leeyahay macnaha hadaan sameyn lahay hadaan wax sadaqaysan lahay waxay ka shalaynayaan dadkan wixii ilaahay u soo dhiibay inay dadka kale u soo dhiibi waayeen ee ka shalaynayaan fa sadaqa wa akum min as-salihin waxa kamid noqon lahayn kuwa wanaagsan oo samafalayaasha ah oo ilaahay u naxariista kamid ahaan lahayn leeyihiin hadaan sadaqaysan lahayn wuxuu ilaahay noo soo dhiibay aan dadka u sii dhiibi lahaa adiga waxa leedahay xataa maahan ilaaha lagu soo dhiibay ku soo dhiibay dadka kale u sii dhiibaa lagu yiri adigana xoogaa ka reebo oo ma sha Allah oo nafsadaada ka dabar macnaha kulli dhiib xataa lagu ma dhihin qofka dhiibay ma sha Allah waaye laakiin wax dhigo guri dhiso laakiin ilaahay dartiisna wax u dhis oo wax u dhiib marka malaga labaada meeshan imaanay qofka ku dhagi qofka lacagta ku dhagi isbaarada u dhigtay irsaaqadu ilaahay u soo dhiibay dadka kale u sii gudbin waay muxuu leeyahay malag labaad malagi labada malago subax ka soo dagaayeen kii koobaad wuxuu lahay Allahumma a'di munfiqan khalafa uu lahay ma arkano ilaahay oo kii wax baxsaday wax khayr qaba ugu bedel kan laakiin muxuu sameeyay wixii loo soo dhiibay dadku u sii gudbin waay malagan markuu wuxuu leeyahay Allahumma a'di mumsikan talafa ilaahay rabbi oo rahmaan oo kan ku dhagay kan ma arkino bakhiilka ku noqday maalka u soo dhiibtay oo dadka kale ugu soo dhiibtay isbaarada intuu u dhigtay kaligiis leexsaday oo dadka aan waxba ka gaarsiinin
ilaahu rabbi raxmaan wuxuu leeyahay kan kow i kartafka si maalkiisa ilaahoyo irsaaqada ilaahu ka yaray balaayo ilaahu ku rid caafimaadka ilaahu ka qaad maxaa la dhihi jiray cimriga ilaahu barakadiisa ka gaabi adi wixii habaar ah oo macnaha qof lagu habaari jiray maalkii ha ahaado maalkiina waa laga habaaraa asaga cimrigiisa macnaha culimada qaar waxay asaga cimrigiisa xataa kawka siiya ilaahu laga wadaaho asaga laftigiisa cimrigiisa meesha kii horeeta cimri dheerida lagaaga baryahay sadaqada ee cimriga xoogaa ku dheeraanahay sadaqada wallahi waxyaabaha keli ah ilaahay horta wax kasta oo sameeynaysa macnaha looxul maxfuudku way ku qoran yihiin wax kasta sida kasta u dhaqmaysid wuu ogyahay ilaahay ficilka laakiinse ilaahay muus kuu qorno wuxuu kuma dhihin wadadaas sameeynaysa oo mari doonta ee wuxuu ogaa ilaahay wadada aa mari doontiduu ogaay wuu sii qoray bas adig wadadan aa maraysa adaa go-aansatay ilaahay laakiinse caalimul qayb maadaama uu yahay wuu ogaay wuuna kuu soo qoray laakiin wadada adaa u go-aansatay ilaahay marka hanaga dhigo kuwa wadada fiican u go-aansado sadaqada bixiyo marka dadkii waxaas ku dhagay malagaas saasay u habaarayaan malagaas markay habaaraan ee dadka yaaleetani ama salowla akhartani ee dhahayeen shalaatadii naartay galayaan ayadaa waxaa ku arkay maalin horeeta wiil walaalkay ah ee istoriga u saarneed oo maa salakakum fi saqara la weydiina dadka ahlu naarka ahay oo naarta saqara ku jira waxaa la weydiina war maxaa idin keenay maxaa idin ku saliday naartan saqara la yiraahdo maxaa ku sababsateen sababta u gasheen naartan waa maxay qaaluu lam nakum min almusallin qaybta koowaad waxay leeyihiin horta kuwa tukad ma ahayn anaga salaad waa la yaqaanaa 5 tiir oo islaamka kamid tahay waa tiirka labaad qofkii ka tagay inuu cidaab ku mutaysanayo iska cadaha Soomaa laakiin sadaqada kuwa labaad waxay leeyihiin qaaluu lam nakum min almusallin Soomaaliin kuwa hore kuwa labaad waxay leeyihiin walam naku nud'imul miskiin kuwa masaakiinta quudiya ma ahayn oo sadaqadi ah sadaqada macnaha mid waajib ah iyo mid waxaa jirta oo aan waajib ahayn sadaqada waajibka ah waxaa waa sakada waay sakada ayada tiirarka islaamka kamid tahay laakiin midaan kaleeto sakadan ayadan way soo galaysaa sadaqooyinka iyo midda kaleeto macnaha qofka aanan bixinin oo maalkiisa sakada aan ka bixin sadaqada kaleetana aan bixinin ma arkin waxay kamid yihiin marka dadka naartaas galaayo oo ilaahay irsaaqada u soo dhiibay iyo maalku u soo dhiibay adiga waa lagu sharfo wallahi billahi qofkaas booska asaga la dhigay adiga waa lagu dhigi kari maalkan adiga ilaahay ku soo dhiibay qofku kugu soo dhiibay qofku ku soo gaarsiiyay adigana waxa laga rabaa qof kale to ka sii hooseeya jiro ina u sii dhiibtid oo sii gaarsiisid qofkaasna sidoo u sii gaarsiiyo qof kale to ka sii hooseeya laga yaabo caruurtiis inay yihiin laga yaabo waalidkiis inay yihiin marka qof walbaba qofka ka dambeeyo macnaha sadaqada hadii u soo dhiib waayo oo mid dhexda u galo oo isbaaro u dhigto qofkaas maxaa u maleynaysi marka kii wadada jaray macnaha saas loo habaarayay laakiin qofkii irsaaqadii ilaahay u soo dhiibay oo san asaga lahayn oo isbaaro u dhigtay qofkaas dambigiisa Allah dhaafo sadaqada ma arkino marka waxay kamid tahay wax kasta oo lagu mutaysan karo hadii la bixiyo jana lagu mutaysan karo badana una fiirsada meeshaan ariga ay dhahay waxa badana cagsigeeda macnaha wixii jana lagu mutaysanay hadaa ka tagtid oo sameyn weysid waxa macquul ah naar ina ku mutaysatid oo sadaqadana meelahaas oo macnaha qofka ku mutaysan karo naarta ee soo galaysa haduu ka bixin waayo maalkii xaq lagu lahaay sadaqada qofkii loo soo dhiibana uu dhexda u galo marka waxa lagaaga baahan yahay waxaan lagu soo dhiibay maalkan adima lihid ilaahay waxa kugu soo dhiibay ina qof kale u sii dhiibtid qofkaas kale dhexda u galin inta aad quudka lagaaga talagal ka qaado inta kaleetana u sii gudbi qofka miskiinka ah oo lagu soo dhiibay marka waxyaabaha oo keenan waxa waaye maal jaceelka iyo in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayadan macnaha laga yaabo dadka qaar kood inay isleeyihiin sadaqada waxba kama gelin laakiin si ilaahay wuxuu nagu leeyahay qofna ilaahay qowm bedelo ilaa ay ka bedelaan waxa ayanka nafsadooda ku jira nafsadeen waxa ku jira maxaa waa maal jaceelka waaye xaasinimada waaye ina qofkan kale wax ka xasideyno qofkan kale inaan u qoorin waaye maxaa kaleeto oo kamid ah waxyaabahaas bakhiilnimada waaye ina anaka jecelahay ina anaka wax dhisano horta horeeta anaka isku waxeeno marka waxyaabahaas oo dhan intaan ka nadiifin dalkeena abaarihi kama dhamaanayaan dadka baahida kama dhamaanayso marka ilaa anaka macnaha waxyaabahaas nafsadeena ka nadiifino oo aan walaalaheena wixii yariiska uu ilaahay noogu soo dhiibay aan u sii dhiibno oo aan isbaaro u dhigan ilaa intaas aan ka gaareyno oo xaasinimada iyo naxariis darrada iyo arxan darrada aan ka tagayno iyo hagarta dadkeena way ku sii jirayaan abaarta marka walaalahay qaaliga ah am walaalkay qaaliga ah walaashayda sharafta leh dadkii Soomaaliyeed qofka u baahan yihiin adiga waay dadkii Soomaaliyeed qofka u baahan yihiin adiga waay waxyaabaha ku sadaqaysan karto waxa kamid ah waqtigaaga kamid ah aqligaaga kamid ah
xoogaaga kamid ah iyo maal hadaa haysato oo yar awoodid maalkaaga asagana sidoo kaleeto in aad ku sadaqaysatid waana sida aad ku liibaan kartid runtii adduun iyo aakhiraba xoogaagan yariisko adduunyada ku baxsatay maasha Allah ilaahay macnaha waxa waa ayadoo intay dhooray jibaarinta horta ma la sheegi karo ilaaha og Allahu a'lam laakiin ayadoo wax yariis hadaa baxsatid wax weyn ayadoo ah oo weligeed joogayso aakhiro ugu tagaysaa midaas ayadoo dhor jibaaran aakhiro ugu tagaysaa sadaqada marka muhiimadeeda hadaa wax yar waa ka soo taabanay gaalada xataa inay ogaatay gaalada maxaa taqaaniin dadkii say ugu saacidaha leenaha gaaladan waxay raadiyaan oo kaliya ah inuu maalka u saacido dhowr iyo 10 sano ugu dambeysay horta nimankii uu adduunka ugu lacagta badnaa waxay ahaayeen Bill Gates iyo Warren Buffett isku bedeli jireen oo kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay Bill Gates iyo xaaskiisa Melinda Gates waxay leeyihiin foundationka ma arkino adduunka ugu weyn waxay haystaan 47 bilyan foundationkaas 47 milyan maahan ya bilyan ay haystaan oo macnaha wax sadaqa iyo dad oo taajiriin laga aruuriyay iyo wax loo baahan yahay in la bixiyo Warren Buffett sidoo kale asagana wuxuu 99% lacagtiisa 9% waa ninka adduunka ugu lacagta badnaa ahay marna labaad ku jiray 99% maalkiisa adduunyada dhan markuu dhinto wuxuu dhahay waa sadaqaysta sadaqani intaas kaliya ah maahan inta uu nool yahay wax waa sadaqaystaa dadkina wuu soo aruuriyaa oo macnaha wixii qof kasta oo taajiriin ah wuu soo aruuriyaa wuxuu leeyahay sadaqayso lacagtaada meeqa diyaar ka tahay ina baxsatid waxaas wax u sameynayaan waxa waa bil aadanimo iyo inuu aaminsan yahay sadaqada inuu maalka ku koro dadka kale oo macnaha sadaqada inuu maalka ku koro kamid ah waxa waay personal development waxa loo yaqaano horumarinta shakhsiyadda dadkan ku takhasusay labada qof ugu fiican hadeer inta nool Tony Robbins iyo Brian Tracy waxa waay waxay ku leeyihiin 10% ugu yaraan wixii ku soo galo 10% mushaarkaaga 100 hadii ku soo gasho $10 inaad baxsatid way kun hadii ku soo gasho $100 inaad ka sadaqaysatid way oo qasab waajib way ku leeyihiin macnaha wixii ku soo galay in tira cayiman ka sadaqaysatid waxa sadaqaysanaysa xataa waalidka walaalaha ehelkaaga iyo qaraabada kuwaas ugu horeeya waxa siinaysid sadaqa u niyeyso marka waa qasab ay ku leeyihiin dadkaasna in aad ka sadaqaysatid Jeff Bezos oo asagana iyo macnaha iyo Elon Musk oo hadeer dadka uu taajirisan oo dadkaas bedelay ayakana sadaqada waaweyn way ku caan baxeen inkasta oo la yiraahdo Elon Musk sida dadkaas oo kale oo bilyaneerada waxay bixiyaan milyuumaad way dhaafeen bilyan lacag ah bixiyaan marka ninka ugu bilyama yar waa leeyahay markii la bixinayo meesha ay ka dheelayaan waxa waay 100 maahan 1000 maahan milyan maahan bilyan waa meesha laga dheelayo oo la leeyahay ninkan sadaqada si fiican u bixiyo lacag badan u haystay annagana Soomaalida in isma weydiiyo annagoo dhulkeena baahi ka jirto dad waxa badan ma aqaan horta Allahu a'lam inay jiraan laakiin waxa loo baahan yahay dad badan oo sadaqada ku tartamo dadkeeni macnaha magac lahaay ama maalka lahaay iyo wax kastaba hadaa adiga haysanin xataa u jeedaa qof kaleeto ka soo qaad qofka kaleeto u sii dhiib dadka u sheeg dadka sadaqada kula tali dadka kaleeto inta yar haystid sadaqada kula tartam marka waxa arkaynaa sadaqadii muhiimadeeda laguma baraarugsano lagumana tartamo marmarka kaliya ah oo la soo xasuustan waxa waa marka masaajidka lagu jiro oo la yiraahdo masaajid yar la dhisay bal waxa la soo aruuriyo abaara jirtay bal waxa la soo aruuriyo sadaqadan intaas kaliya ah ma sadaqada waa maalin joogto ah in la waxeeyo wadooyina loo baahan yahay iskoolada loo baahan yahay masaajida loo baahan yahay ceelala loo baahan yahay geeda loo baahan yahay wax kasta loo baahan yahay sadaqada ma arkino wax dhamaanaya ma ahan qof kasta oo naga mid ah waxa laga rabaa meeshiisa booskiisa inuu ka qaato marka gaalada waa ka soo hadalnay oo Bill Gates iyo Warren Buffett macnaha inay Brian Tracy iyo Tony Robbins inay ahaayeen ama yihiin dadka ugu lacagta badan una sadaqada badan laakiinse asxaabtii oo kaleeto labada nin oo ugu weynaa asxaabta ugu fiicneed ugu waaweyneed maxay ahaayeen Abu Bakar iyo Umar bin Khattab ayakan maxay ku caan baxeen sadaqada ma arkino ay ku caan baxeen marka waxa haysataa fursad aad kula tartami kartid Abu Bakar as-Siddiq iyo Umar bin Khattab fursad aad kula tartami kartid haysataa maadaama dhulkeeni baahi badan ay ka jirto dhulkeeni Soomaalida ee deegaankoodii runtii waxa ka jira baahi aad u badan ka jirto qof kasta fursad wax jiriiska aad bixisatid
intaasoo kale ku dhowr jibaarmay maadaama ay baahida aad u badan tahay. dhulalka carabaha oo kaleeto macnaha waxaa arkaysaa Sacuudi Arabiya oo kale tusaale hadda usoo qaadano Qatar iyo Imaaraadka Carabta dad badan oo macnaha sadaqa lagu baxsan karo ma joogaan. luuqa aa fiirisid qof baahan ma taagno Soomaaliya laakiin luuqa aa fiirisid qof baahan wax siin kartid aa taagan. xabada mooska ah ninay macnaha maasha Allah ay maalintaas ay qado u tahay ee caloosh u buuxinaysa. intaana macnaha waxaa arkaysaa Ramadaanka ee dadka video yara arkay Ramadaanka afurka oo qof walba ajirka inuu shaqeysto la raba waxa arkay ilmo yar oo macnaha la taagan iyo aabihiis ma ahaayeen wadada waxay la taagan waxay dadku afur lahaayeen laakiin samaada maasha Allah dadka iska dheregsan yihiin guryahoodana cunto macaan ugu horeyso wax raba ma lahan baabuurkii afurkii qof walba baabuurka saas u dhaafaa dadkii afurka inay sadaqeysteen rabeen saas loo dhaafaa. annakana maasha Allah waxa waa in la dhaafo iska dhaafay in isku dilaa laga yaabaa meesha afur yariis xabad timir ah laga sheego. marka dhulkeena walaalahay baahi badan ka jirto fursad weyn ah haysanaa oo uga faa'iideysan karno ee aan ka faa'iideysano. marka qaybta labaad u soo galeynaa